faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Gedo. Duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa ka bilowday dagaal beeleed sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana dagaalkan uu ka dhashay dhul beereed la isku haystay. Inta la xaqiijiyay dagaalkan waxaa ku naf waayay ilaa iyo 6 ruux, halka tiro intaa ka badan ay dhaawacyo ka soo gaareen dagaalkaasi. Dadka dhaawaca uu ka soo gaaray dagaalkaasi ayaa la gaarsiiyay isbitaalka degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaas oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo. Maamulka gobolka Gedo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Doolow ayaa u istaagay daminta colaadan oo ay sidoo kalena dad badan ay ku barakaceen. Gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka degmada Doolow oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulka degmada Doolow uu wado dadaalo lagu joojinayo dagaal beeleedkaasi ka soo cusboonaaday deegaanka Boholgaras ee duleedka ka ah degmada Doolow. Maleeshiyo beeleedkani ku dagaalamay deegaanka ayaa isku haysta dhul beereed qiyaastii 10 kiiloomitir u jirta webiga, dhulkaasi oo ah mid ku wanaagsan daaqsinta xoolaha. Ismaaciil Cabdullaahi Daahir, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Doolow, ayaa tilmaamay inuu socdo qorshe ciidamo lagu kala dhaxdhigayo beelaha dagaalamay, waxaana ugu dambeyn labadaasi beelood ugu baaqay in ay dagaalka joojiyaan. Aadan Cali Axmed, VOS TV, magaalada Muqdisho.